Hi, soo dhawaada channelkii King Birkhay. Marka ugu horeysa waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabteyda oo soo mar walba muuqaaladii la gareeya, comment gareeya, channelkana subscribe saara, mar walba ni dhiirigeliya. Waxaad tihiin jidaalkan ku shaqeeyo. Filimkan maanta idiin wado waa film aad iyo aad u xiiso badan. Wiil maskiin ah ayaa gabar jeclaanaya isagoon ogeyn waxa ay tahay, balse ugu dambeyntii arrimo xun aad loogu naxo ayuu ka ogaanayaa gabadhaas. Yani ka hor dhici filimka ee daawo. maanta waxaan rabaa inaan sharaxo filim lagu magacaabo My Girlfriend is a Serial Killer oo macnaheedu tahay saaxiibteyda waa dilaa qarsoon. daawo oo taxadar. intaan filimka bilaaban ka hor sida caadi noo ahayd aniga asxaabteyda waxaan wada galnaa challenge-gaasoo ah waxaan ku tusinaa kilib yar. haddii aad kilibkaas ku qosasho waxaa waajib kugu ah inaad muuqaalka like saartid. haddii aad ku qosli weysid ikhtiyaarka markaas adigaa iskale. haddii aad rabtid waa iska dhaafi kartaa, haddii aad rabtidna waad ii like gareyn kartaa. No. sidoo kale haddii aad ka hesho filmaanta sidaan oo kale loo soo koobo waxay loobin inaad channelka subscribe saarto gambalaalkana furtid muuqaalkana like saartid. mahadsanid. filimka waxa uu ku bilaabanayaa wiil niyad jabsan oo lagu magacaabo Etsuro Kurosu oo sariirtiisa jiifa kaasoo ku fikiraya inuu isdilo. isagoo isku daya in noloshiisa soo afjaro ayaa derbiga qayb ka mid ah kusoo dumaya, taasoo keentay inuu duleel gidaarka ka samaysmo. wuxuuna arkay iftiin ka soo baxaya godka. intuu soo istaagay ayuu eegay duleelkii wuxuuna arkay gabar aad u qurux badan oo wax cunaysa laguna magacaabo Rio Miyaji. kadibna wuxuu bilaabay inuu si joogto ah u fiiriyo gabadha. Etsuro ayaa godka ka dhex mushaaxaya oo waxa uu daawanaa Rio oo soo golaysa, laakiin si fiican muu eegi karin iyada. sidaa awgeed waxa uu soo dhawaaday albaabka Rio oo uu bilaabay inuu ka eego duleelka albaabka. gabar kale oo dibadda taagneed ayaa aragtay Etsuro waxa uu bilaabay inuu iska dhigo qof shaqaynaya. gabadhii ayaa walaalkeedu cunto u surtay albaabka sababtoo ah asiga waa baagamuundo una baahnaa. kadib way iska tagtay gabadhii. Etsuro hoos buu usoo dhaadhacay wuxuuna bilaabay inuu cuntadii xado. Rio ayaa dabaqa sare ka fiirinaysa isaga, waxayna bilaabeen inay wada hadlaan. labadooduna way isbarteen. Rio isla markiiba waxay casho ugu yeertay Etsuro. qolkeeda ayuu soo galay wuxuuna hareeraha ka eegayaa meesha uu ka fiirinayay. wuxuuna arkay godkii yaraa oo ku og yaalo qasnada bugaagteeda. Rio ayaana soo gashay iyadoo cuntadii wada. labadoodaba way wada fadhiisteen waxbay wada cunayaan. Etsuro ayaa u bogaadiyay cuntada oo weydiinaya haddii uu wax badan heli karo. Rio ayaa si farxad leh u tiri haa, xitaa iyadu waxay siinaysaa fursad uu kula cashayn karo waqti kasta oo uu rabo. cuntada kadib Etsuro ayaa isagoo faraxsan ku soo laabtay qolkiisa. dabadeed waxa uu godka ka eegayaa Rio ilaa ay ka seexanayso. maalin maalmaha ka mid ah oo ay wax wada cunayeen ayaa Etsuro wuxuu weydiiyey inay ka caraysan tahay maadaama uu shaqo la'aan yahay oo uu had iyo jeer u yimaado inuu wax ka cuno qolkeeda. laakiin Rio waxay sheegtay inay xataa wada noolaan karaan. Etsuro wuxuu bilaabay inuu jacayl u qaado gabadha oo uu malaynayo inay ku fiican tahay qaab kasta. habeenkii xigay Etsuro waxa uu ku fikirayay inaanu ku basaasin godka, laakiin ma xakamayn karo damaciisa. muddo dheer oo iscelcelinaya kadib aakhirkii wuu isdhiibay. markuu godkii eegay ayuu arkay Rio oo qolkeeda soo galaya nin kale. Etsuro ayaa isweydiiyey in ninkan yahay saaxiibkeed, balse daqiiqada kadib ayay dishay ninkii, waxayna u dhoola cadaysay sidii qof dilaa weyn oo kale ah. Etsuro ayaa gidaar ka riixay taasoo keentay in buuga ku dhaco qolkeeda kaasoo xanibaya duleelkii. wuxuu aamini waayey oo la yaabay in Rio ay qof dishay. kadib Etsuro asigoo niyadjabsan oo ku fikiraya wuxuu arkay ayuu maqlay garaaca albaabkiisa oo uu furay. wuxuuna arkay Rio oo casho gacanteeda ku wada. sidoo kale waxay u muuqataa inay jacayl u qabto oo ay u soo jeediso inay markaan qolkiisa wax ku cunaan. intay cuntada cunayeen Rio ayaa u sheegtay Etsuro inuusan dareemin kelnimo iyo in aan la jeclayn. waxay ku soo noqotay qolkeeda kadib markay casheeyeen. Etsuro ayaa iska leexiyay buuggii xanibay godka oo ka eegayay. waxa uu ka shakiyey in waxani ay yihiin dhalanteed kadib markuu arkay Rio, laakiin waxyar kadib wuxuu arkay gabar kale lagu magacaabo Emily Riens. markaan waxa uu noqday mid aad ugu shakisan Rio. subaxii xigay Rio ayaa gadaal ka wacday Etsuro isigoo u soo socda meelaha labadaanyada ee dharka lagu dhaqdo. Rio ayaa Etsuro u sheegtay inuu isticmaali karo mashiinkeeda ee dhaqida, waxayna u muujisay rabitaan ah inuu gurigiisa casho kula cunto. Etsuro si farxad leh ayuu u ogolaaday, balse waxa uu si degdeg ah u xasuustay dhacdadii habeen hore. si kastaba ha ahaatee waxa uu isku dayay inuu naftiisa ku qanciyo inaanay suurtagal lahayn sababtoo ah wuxuu arkaa Rio mid qurux badan oo soo jiidasho leh. yaa dhahay dadku qurxoon Axmed Dilaar.
habeenkii xigay Etsuro waxa uu qolkiisa ku diyaarinaya miiska cashada laakiin wuxuu maqlay cod ka imaanaya qolka Rio wuxuuna arkay nin kale oo qolka soo galaya. Rio waxay dishay ninkii si limid ah kii hore laakiin markaan Etsuro wuxuu ogaaday inaysan ahayn dhalanteed aad buu u qeyliyay cabsi darteed taasoo soo jeedisay Rio waxayna ku soo tuurtay mididii. Etsuro uu baxsaday oo wuxuu fuulay saqafka gare ee dhismaha laakiin Rio ayaa ka daba tagtay oo ku qabatay midida gacanteeda ku jirta. Rio ayaa weydiisay Etsuro sida uu ku ogaaday sirteeda wuxuuna daaha ka qaaday wax walba guud ahaan ku saabsan iyada. waxa uu sidoo kale u muujiyay dareenkiisa Rio ugu dambeyntiina jilbaha ayuu dhulka dhigtay wuxuuna diyaar u ahaa inuu dhinto. Rio kadib waxay mindidii uga qabatay dhuunta oo ay weydiisay rabitaankiisa ugu dambeeya. Etsuro ayaa sheegay rabitaankiisa ugu dambeeya inuu yahay inuu shukaansado iyada. Rio markay hadalkaas maqashay kadib waxay afkiisa ka leefaysaa dhiig bayna dhunkantay isaga. Maalintii xigtay waxay bilaabeen inay issukaansadaan. Etsuro wuxuu shaqo ka helay dukaan weyn isagoo kartoonka midida ku jeexay ayuu dib u soo xasuustay rabshadaha iyo dhammaan hagardaamadii ay samaysay isagoo aad ugu xumaaday. Kadib markuu shaqada ka soo noqday Rio waxay ka salaatay godkii. Subaxdii xigtay Rio waxay u kaxaysay Etsuro asxaabteeda iyadoo ay isbarayso waxayna u sheegtay inuu yahay iyada saaxiibkeeda weliba aad uga farxiyo. Etsuro aad ayuu ugu farxay arrintaas maadaama uusan weligiis qofna jeclaan. Etsuro waxa uu sheegay inuu go'aansaday inuu iska soo qoro isla kuliyadeeda si uu ugu ilaaliyo wiilasha kale laakiin Rio waxay xasuusisay inay tahay dilaa. Etsuro ayaa markaas weydiiyey ilaa intay ku tala jirtaa inay sidaan sii wado laakiin Rio kamaysan jawaabin. Etsuro ayaa maalin su'aalo ka weydiiyey sababta ay dadka u leyso. Waxa uu weydiinaya bal inay xifaaltan shakhsiyaad kala leedahay shakhsiyaadkaas. Si kastaba haatee Rio ayaa u muujinaysa inuu u diyaarsan yahay liis dhammaan dadka xun oo ay mid u disho. inta uu hadalkan dhageysanayo waxa uu isweydiinayaa inay tahay nooca dadka cadaaladda siiya dadka kale. Aad buu u jecel yahay iyada wuxuuna doortay inuu iska idnotiro dhinaceeda dilaaga ah. Maalintii xigta Etsuro wuxuu akhriyay wargeyska wuxuuna la yaabay inuu arki waayo war ku saabsan dilalkii Rio. Shaqadiisii kadib waxa uu ku soo laabtay guriga waxa uu la kulmay wiil lagu magacaabo Kawasaki oo isku dabaq ku nool yihiin. Kawasaki waa isla qofkii uu cuntada ka soo xadi jiray maalin maalmaha ka mid ah isagoo shaqada ku jira Etsuro. Waxaa la kulantay Kawasaki walaashiis waxayna isbartay Etsuro magaceedana waxay ku sheegtay Haruko. Etsuro waxa uu sheegay in aan looga baahnayn in lacag bixiso sababtoo ah waxay hore u caawisay isaga. Etsuro wuxuu ka soo noqday shaqada wuxuuna isku dayay inuu Rio kula xiriiro godka laakiin ma helin wax jawaab ah. Kadib wuxuu mar kale eegay godka oo wuxuu arkay fariin ka timid Rio oo leh inaad ila kulanto caawa 10 habeenimo ama 4 saac habeenimo. Wuu qubaystay oo sugaya ilaa 10 habeenimo. Kadib wuxuu maqlay buuq ka soo baxaya qolka Rio. wuxuu u degdegay godkii oo wuxuu ka dhex arkay markaan Kawasaki oo xirxiran iyo Rio oo rabta inay disho. Etsuro ayaa u qeyliyay inay joojiso laakiin Rio ayaa u sheegtay inuu aamuso oo uu fiirsado kadibna way u dhameysay Kawasaki. Muddo kadib Miyagi Rihanna waxay keentay shaqaalihii nadiifinta waxayna bilowday nadiifinta qolka si aan caddayn loo helin. Intaa kadib Etsuro wuxuu soo galay qolka Rio wuxuuna weydiiyay Rihanna sababta ay waxaan oo dhan u sameynayso. Rihanna waxay ku jawaabtay in dad badan oo adduunka ah oo iyadu ku jirto ay u baahan yihiin meyd waxayna soo bandhigaysaa dhig ka samaysan far bini'aadam. Etsuro waxa uu la yaaban yahay sababta ay u dilay Kawasaki oo u muuqda inuu yahay akhyaar. Markii ay maqshay hadalkaas Rihanna waxay Etsuro geysay qolka Kawasaki halkaas oo meel kasta ku arkay dhiig wuxuuna ogaaday in Kawasaki uu kala goyn jiray oo si naxariis darro u dili jiray bisadaha. Sidoo kale Rihanna waxay Etsuro ugu degtay Rio laga yaabaa inay sidaas oo kale u dishay isagana. Markuu hadalkaas maqlay Etsuro aad ayuu argagaxay oo isla markiiba wuxuu ku noqday qolkiisa si uu u seexdo. Subaxii xigay Rio waxay soo garaacday albaabka Etsuro balse ma uusan ka furin. Markaas ay Rio ka soo gashay balakoonka. Rio waxay u soo dhawaatay Etsuro waxayna siisay hab laakiin Etsuro si wanaagsan oo lumuusan dhaqmin. Rio aakhirkiina way iska tagtay. Maalintii dambe ayuu Haruko kula kulmay meeshiisii wuxuuna ka wareystay walaalkeed laakiin Rio ayaa isla markiiba ka soo muuqatay balakoonka waxayna ku casuuntay Haruko qolkeeda si ay u sugto walaalkeed laakiin Etsuro ayaa ka diiday Haruko inay sidaas samayso. Kadib Haruko way iska degtay. Etsuro waxa uu weydiiyay Rio inay dili doonto Haruko balse waxa ay tiri maya. Maalintii xigtay Etsuro wuxuu helay fariin kale oo ka timid Haruko isagoo ku martiqaaday dukaan qaxwa si uu weydiiyo walaalkeed. Kadib waxaa yimid gaari madow oo soo jiiday Etsuro gudahan wuxuu ku arkay Rihanna oo ku jirta baabuurka wuxuuna ku wargeliyay in Haruko ay raadinayso walaalkeed Kawasaki.
Rihanna waxay ku mujaajilootay iyadoo ku andacoonaysa siday u heli kartaa qof mar hore dhintay. Muuqaalka xigay, Etsuro waxa uu aaday goob lagu qaxweeyo si uu ula kulmo Haruko. Waxay u sheegtay Etsuro inay dacwad ka gudbisay saldhigga booliska sababtoo ah walaalkeed ayaan guriga ku soo laabay muddo dheer. Haruko waxay u malaynaysaa in walaalkeed uu safar u baxay. Waxay Etsuro ka codsanaysaa inuu ka caawiyo la hadalka mulkiilaha guriga lahaa. Markuu mulkiiluhu furay albaabka qolka Kawasaki, Etsuro wuu yaabay sababtoo ah wax walba waa la nadiifiyey, wuxuuna u muuqdaa sida qol caadi ah. Markuu arkay kadib, Etsuro neef ayaa ka soo fuuqday. Etsuro wuxuu arkay Rio oo la socota nin kale oo gacanta ku haya garabka Rio. Kadib markii ay wada cashiinayeen, Etsuro ayaa ninkii wax ka weydiiyey, laakiin Rio way ka hortimid oo u sheegtay inuu ka fogaado Haruko. Labaduba waxay u muuqdaa inay xaasidin yihiin. Si lama filaana, Rio ayaa iska tuurtay cuntadii xanaaqeeda awgeed, laakiin Etsuro ayaa isku dayay inuu qanciyo oo gadaal hab ka siiyey. Waxuuna damcay inuu dhunkado, balse way joojisay iyadoo qori uga qabatay qoortiisa, waxayna ku tiri maya. Muuqaalka xiga, Etsuro wuxuu kula kulmay Haruko dukaan lagu qaxweeyo, halkaasoo ay ku wargelisay inay isaga kaga habboon tahay Rio. Waxay sidoo kale u sheegtay in Rio uusan isaga bedeli doonin. Haruko way sii baxday iyadoo u sheegtay inay soo noqon doonto maalintii xigta si ay u sugto jawaabtiisa. Isagoo ku laabanaya gurigiisa, Etsuro ayaa waxaa afduubtay koox burcad ah, waxaana la geeyey goobta ay ku dhumaalaysanayeen. Hogaamiyihii kooxda gaangiska ayaa ku amray inuu Rio dilo, balse Etsuro wuu diiday. Hogaamiyihiina wuxuu ku amray kooxda inay garaacaan, kadibna waxay u ogolaadeen inuu iska baxo. Etsuro iyo Rio waxay bilaabeen inay dagaalamaan kadib markii guriga yimaadeen. Etsuro ayaa u sheegay inay joojiso dilka dadka, balse way diiday oo dagaalkooda wuxuu sababay inay kala haraan. Kala tagoodii kadib, Etsuro ayaa godka fiiriyey mar kale, wuxuuna arkay Rio oo qofka la dilaysa, balse markaan halkii ay dhoola caddayn lahayd wayba ooynaysaa. Etsuro wuxuu ogaaday in Rio dadka ku dilayso amar ka yimid burcadda, waxayna waxaas oo dhan u samaynaysaa si ay asaga u ilaaliso. Etsuro aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna go'aansaday inuu aado meesha ay ku dhuumanayaan gaangistarada. Kadibna wuxuu u sheegay in Rio aysan ku qasbayn inay disho dadka kale. Wuxuu isku dayay inuu midi ku weeraro, laakiin maadaama uusan lahayn xirfad dagaal, aad buu u guuldaraystay. Kooxdan burcadda ayaa ku garaacday goob fagaara, isagoo hogaamiyaha doonaya inuu dil ku fulo Etsuro ayaa bamagacmeed gaasa gudaha laga soo tuuray, taasoo qof walba ka dhigaysa inuu ka cabursamo. Markaas ayay Rio soo gashay iyadoo wadata jaakad roobaad iyo maaskaro. Waxay go'aansatay si ay u badbaadiso Etsuro inay tahay inay disho qof kasta oo ka mid ah burcadda, iyadoo kelmad dhihin. Waxay adeegsatay xirfadeeda oo waxayna dishay qof kasta oo qolka ku jira. Kadib markay dhamaysay dhammaantood, Rio waxay soo qaaday Etsuro oo ay soo saartay sariir. Waxa uu la yaaban yahay sababta ay dhoola caddayn weyday kadib markii ay dishay dhammaan dadkan sida caadada ahayd ay samayn jirtayba. Waxay ku jawaabtay inaysan ahayn wax lagu raaxaysan karo waxaan. Wuu farxay wuuna dhunkaday isagoo u malaynaya inaanay qof dambe aysan dili doonin, balse dhowr daqiiqo kadib waxay mindi caloosha kaga taagtay Etsuro iyadoo mar walba doonaysa inay aragto jaceylkeeda oo dhimanaya. Ugu dambeynna ku tidhaahda waan ku jeclahay, annaga ayaa baragnay. Etsuro ayaa ugu jawaabay waan ku jeclahay, kadibna dhulka ayuu ku dhacay. Muuqaalka xiga, Rio waxay la kulantay Rihanna oo ay kala hadashay sidii ay uga bixi lahayd magaalada. Waxay sidoo kale xaqiijisay in Etsuro uusan dib dambe ugu fiirin doonin daloolka. Kadib Etsuro dhaawac ayaa soo socda, waxaana caddaatay in Rio aysan dilin Etsuro balse ay dhaawacday. Muuqaalkii ugu dambeeyay, Etsuro iyo Rio labadu waxay bilaabeen safarkooda cusub, waxayna Rio u ballanqaaday Etsuro inaysan qof dambe dili doonin. muuqaalkeena maanta intaanu ku eegay waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka heshay. haddii intaan la soo gaartay waxaan ku leeyahay mahadsanid kun iyo kow jeer. waxaan iloobina muuqaalka like saartid, channelkana subscribe saartid, wixii fikirkaada ahna commentiga noogu soo reebtid. mahadsanid.